qaranimada Soomaaliya iyo jirkeeda danteena ku jirta cidna uga cararmayno cidda khaldan baan qaban doonaa haddii ilaahayno waana la gaarayna waxaan u taaganahay aniga oo madaxweynihii ah golihii wasiirada madaxda ciidamada shaqaalaha dawladda waxaan u taaganahay ilaalinta dawladnimada Puntland sharcigeeda iyo qawaaniinteeda taasa annagana nagula xisaabtamayaa annaguna aan dadka kula xisaabtamayna waxaan rabnaa caalamkan inuu ogaado ummadda Soomaaliyeed inuu ogaato waxaan sharci ahayn kuma dhaqmi doono ilaahay idankiis wixii siyaasad iyo xeeladana farsamadeeda la imaan doonaa wixii qarnaqsina waa u taagnaan doonaa dalkan horumarkiisa hadda wuxuu noo yahay hortaginta koowaad dawladnimadeena dib u yeelanaynaa wixii aan gaari weynay 25 sano soo socotaan ka shaqeyn doonaa waxaan rabnaa Puntland hadda iyo hadhowba waxay noqon doontaa block Soomaaliyeed oo sidaa u dhisan oo isku tashada adeegiisa dadka ku firnaada ama annaga aan joogno ama xukuumadda kale ha joogaan dawladda Puntland waa dawlad dadkana dhisteen dibna uga noqon doonto inay ahaato dawladda kamid ah dawladaha federaalka ee Soomaaliya qaranimada Soomaaliya iyo jirkeeda danteena ku jirta cidna uga cararmayno cidda khaldan baan qaban doonaa haddii ilaahayno waana la gaarayna horay waxaa la yidhi hal bil qaday beri kuma daweeyey 30 sano aan soo halgaynay dadkeena dhisanaynay danaheena ka shaqaysanaynay meesha aan maanta soo gaarnay dadka Soomaaliyeed marxaantiga ka yihiin wax badan baa la jeclaan wixii karaarkeen aan la qaban ama noo soo qaxaan ama gacan ka geysan haddana halkii waa in laga sii wado waxaan rabaa midnimada Puntland inaan ilaalino wada jirkeena inaan ka shaqeyno bulshadeena si daacad ah ugu adeegno horumarkeena wuxuu ku jiraa wada jirkeena marka waxa inoo ballanaa wada jir iyo horumar loo siman yahay waxaan kaloo halka rabaa inaan ka cadeeyo waxyaabaha dib loo eegayo waxa weeye waxyaabihii naga khaldamay ee ah shaqo qorista ama ciidan ahaato ama madani ha noqoto iyo xilalka iyo sida loo bixiyo sida loo hayo ay noqon doonto insha Allah qofka ku haboon iyo sida uu ugu haboon yahay in la isla garto aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum macmiil shirkadda isgaarsiinta ee Golis waxay ku haysaa adeeg internet xawaare sare leh qiimo jaban aad ku gashan kartid gurigaaga ama goobtaada ganacsiga fiber optic shirkadda isgaarsiinta ee Golis waa kan ugu xawaaraha sareeya guud ahaan dalka si aad isaga diiwaangelisid fadlan wac lambarka gaaban ee 181 ama booqo xarumaha shirkadda Golis